بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa telefishinka Universal oo si toos ah iminka uga daawanaysaan ama barnaamijkan oo idinkaga imaanayo gaarka ah magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. barnaamijkan gaarka oo uga hadli doona arrimaha doorashooyinka Galmudug iyo marxaladaha ay soo mareen iyo xilligan waxyaabaha la doonayo in hore loogu socdo ayaan caawa si gaar ah ugu eegi doonaa barnaamijkan tooska ah. waxaana nagala qayb galaya xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena xubin ka ah baarlamaanka Afrika. sidoo kale waxaa nala jooga oo barnaamijka qayb ka ah xildhibaan Shaacir Sheegow oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug oo barnaamijka isaguna sidoo kale nala falaqay doona. waxaa sidoo kale barnaamijka dhinaca su'aalo weydiinta qayb ka qaadan doona ka qaybgalayaasha barnaamijka ee qaybaha bulshada oo barnaamijka caawa nagala qaybgali doona. waxaana si gaar ah diiradda ugu saaraynaa sida hore in kugu sheegaba arrimaha doorashada dowlad goboleedka Galmudug iyo waliba marxaladii ay soo mareen iyo waxyaabaha iminka jira sida looga gudbi karo oo ay kamid yihiin arrimaha khilaafaadka. marka waad xildhibaane ku soo dhawaada TV-ga Universal si toos iminka doodan ay uga socoto. waxaad kamid tahay aan ku hormaray xildhibaan Cabdixakiin mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ku sugnaa dhowr bilood magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. muddadaas waxaa si aad looga hadlayay dhismaha dowlad goboleedka Galmudug in dib mar kale maamulkeeda u hana qaado. maxaa la soo maray oo aad bulshada la wadaagi kartaa? بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما سنت عبد الفتاح iyo xildhibaan shaacir oo nala fadhiya caawa ka qaybgalayaasha sharafta leh iyo guud ahaan dadkana daawanaya TV-ga Universal waa mahadsan yahay fursaddan aad siiseen. waxaan u maleynayaa 8 bilood Juunan halkan nimid 8 bilood ayaan hadda maraynaa intii aan joogno Dhuusamareeb oo loo joogay howlahan dhisidda Galmudug dib loo soo yagleelo. maraaxil kala gedisan ayay soo martay khilaafaad badan oo hadba si looga soo gudbana waa la soo maray. tusaale ahaan markii ugu horreysay Juun halkan la imaanayay dowladda federaalka oo ra'iisul wasaaraha markaa uu halkan yimid iyo maamulkii ahlu sunna wal jamaaca ee halkan ka jiray wada hadal waqti dheer qaatay iyo wasaaradda arrimaha gudaha madaxweyne xaaf guud ahaan wada hadal waqti dheer qaatay ayaa la soo maray. wada hadalkaas oo maxadaad kala duwan soo maray laakiin ugu dambeyntii lagu gaaray is-afgarad iyo heshiis la kala saxiixday. waxaan u maleynayaa heshiisyadii noocaas ahaa ka mid ahayd amniga oo ka mid ahayd siyaasadda iyo sida loo wadaagayo waxay ku soo gabangabowday in la soo gaaray baarlamaan ay leedahay Galmudug oo la dhisay 89 xildhibaan in la soo xulay. qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka beeluhu ay soo xuleen 12 qabiil deegaankan deganaa. qaar ka midana ay soo xuleen maxaa la yiraahdaa culimadii ahlu sunna wal jamaaca ay soo xuleen. marka 89 ka xildhibaan markii uu dhismay baarlamaan Galmudug ayaa hay-addii ugu horeysay ee sharci dejina ee xaq u leh inay masiirka Galmudug go'aan ka gaarto cidda ay rabto ay xulato shaqadeeda iyo waajibaadka qaranka aan iraahdee head state ayaa la soo gaaray. marka haddii la yiraahdo ha laga sheekeeyo xaaladihii la soo maray xaalado aad u kala gedisan mid walba marxaladeeda leedahay mid walba aan arkaynay maalintii la joogay inay tahay midii lagu fashilmayay laakiin ilaahay uu qadaray dhammaantood in laga soo tallaabsada la soo maray. ay ugu cuslayd markii ciidamada lala kala wareegayay amniga magaalada iyo ciidankii ahlu sunna raacsanaa. waad ogtihiin hadda maantay amniguna heer fiican u joogaa. ciidamadii booliska iyo militariga iyo nabad sugidda iyo asluubtii dowladda federaalka ayaa halkan si toos ah uga howlgala. howlgalkoodaas iyo inay waddankan ay Galmudug ka shaqeeyaan bardu waa marxali waa wax laga gudbi doono oo looga tilaabsan doono in ciidan Galmudug ay leedahay isaga uu dhismo. laakiin inta arrintaas laga gaarayo shaqada waajibaadka amniga ee magaaladan Dhuusamareeb ama in badan oo kamid ah Galmudug maanta waxa gacanta ku haya ciidamadaas gacanta ku haya iyaga maamula. dhinaca siyaasadana wada hadalkii la gaaray ilaa laga soo gaaray baarlamaanka naajix oo ahaa si fiican ayaa loo soo dhanaaniriyay si fiicanna waa loogu soo
mooday xilli fiicanna waa lagu soo gudbay 8 bilood wax yar ma aha laakiin masiirka ummadda iyo dadka danahooda iyo masaalixda galmudug ay leedahay mar walba waxay ka sarreysaa maslaxadda shakhsiga waxay ka sarreysaa maslaxadda koox yeelan karto waxay ka sarreysaa maslaxadda in si gaara isu fahmeen ayaga ay yeelan karaan marka maadaama waqti dheer la geliyey shaqo badan la soo qabtay baarlamaankii galmudugna uu dhismay isagaa uu xaq u leeyahay wixii saacadda ka dambaysa inuu go'aan ka gaaro masiirkii ciddii madaxda u noqon lahayd dalkan hoggaankii baarlamaanka laftirkiisii waad la socotaan doorasho shafaafa oo aad u fiican oo ay caddayd oo maaragtay qaabka loo doortay ayaa lagu doortay guddoomiyihii iyo labadiisii ku xigeen caalamkana waa laga soo dhoweeyey dadka soomaaliyeed meelay joogaanna ayagoo ku faraxsanay soo dhoweeyeen wixii ka dambeeyey oo tillaabooyinoo la qaaday haddii uu khilaaf soo baxay waxay tahay in dariiqada sharciga lagu cilaajiyo dariiqa ugu habboon ee daawadiisu ay tahana annaga baarlamaanaan ka tirsannahay baarlamaan waxaa weeyaan qaab uu ku xalliya mashaakilkiisaa jira qaab culayskiisa maxaa la yidhahdaa siyaasadeeda soo dhex mara oo ku xalliyaa jira baarlamaan isku aragtiya adduunka kama jiro baarlamaanada axzaabaa ka jira bilcagsi waxaa jira xisbiga midigta fog midig dhexe bidixda fog bidig dhexe waxaa laga yaabaa inay axsaabta iyo saamaynta ay ku leeyihiin baarlamaanada adduunka inay ka duwan tahay midka aan ku leenahay annaga dad aan aad u kala fogeyn ee dowlajoodooda iyo aaraa'da iyo mabaadi'da ay aaminsan yihiin iyo muntalaqooda meesha ay ka soo baxaysaa aysan aad u kala fogeyn waaye laakiin dee haddana saasay tahay waxa dhexdiisa ka jira baarlamaan walba wuxuu wax ku xalistaa vowdu wax ku xalistaa iyo inuu codeeyo aqlabiyaddana uu raaco u hoggaansamo maalinta aad xildhibaan soo noqoto reerkaad daa'iradiisa lagaa soo doortay ma matashid gaar uma matashid yacni magaaladii aad ka timid gaar uma matashid deegaanka baarlamaanka magaciisa aad ku fadhisaad matashaa go'aankaagana wuxuu saamayn ku yeelanayaa carruurta yaryar ee ku nool deegaankaasuu saamayn ku yeelanayaa tafkiir fiican iyo maskax fiican iyo caqli fiican inaad geliso halka loo socdo iyo shaqada waajibkaaha ku saaran aad gudatana xildhibaankaa laga rabaa marka baarlamaankii mas-uuliyaddaas qaadan lahaa ayaan waxaan aaminsanahay inuu hadda dhisan yahay isagayna tahay wixii dambe ee soo baxa ee khilaafaadahe ee soo kordha inuu daaweeyo cilaajiyo laakiin khilaaf oo hadda dhinacyo kale iyo atraaf kale ay ka talinayaan iyo negotiation iyo wadahadal iyo I think inay aad u soo dhammaato ay soo aruurto xildhibaan cabdixakiin adoo aad u mahadsan waxaad faahfaahin naga siiday waktigii iyo xaaladihii lasoo maray iyo dhismihii galmudug hadda gebagabo marayo wax badan oo wanaagsan in la qabtana waad sheegtay dadka inta badan waxa ay sheegaan in ama naqdiya brosesska in marka la fiiriyo habka la maro waxyaabo badan ay xoogaay ka qaldanaayeen sida in galmudug ay dowlad goboleed ka jirtay oo kale lala rabay doorashada in iyadu qabato oo ay maamusho hay-adaheedii dowladdana intaas waqtigeedu dhammaan ay hawshaas la wareegaan halka wasaaradda arrimaha gudaha ay hawsha inta badan ay qabatay dulduleelaha halkaas ma kaaga muuqdeen muddada gobolka aad joogto horta way ahayd inay madaxdii galmudug iyagoo ay qabtaan doorashooyinkii loogu talagalay inay dhacdo laakiin dee 4 Juulaay ayaa la soo gaaray iyadoo aynan qabanin waajibkii laga rabay madaxda galmudug inay qabtaan markii la wada hadlay oo la isu yimidna waxay u muuqatay in siyaasadda horta xalka ummadda lagu gaaraa ama 2 qofood ha gaarta ama 10 ha gaarta ama groups ha gaareen laakiin siyaasaddu waa shaqo wadiifo looga shaqeeyo dadka horumarkooda looga shaqeeyo waay cid kasta oo marka curin karta oo keeni karta asal u ah fulinteeda galmudug madaxdii joogtay mar hadday ayaga iskhilaafeen ayaga aynan isla jirin kala xirmeen oo qolba meel joogtay waad ogtahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenku islama soconin madaxweynihii iyo ahlu sunna wal jamaa oo madaxii xukuumadda uu ku jiraay markii dambe waa kuwii kala tagay marka mar haddii iyagii aynan meeshii la rabay wax ku wada shubi karin waxay u muuqatay inay u wakiisheen shaqadii oo madaxweyne xaaf oo u wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha shaqadii inay qabato marka waxay ka timid processkan inay hogaamiso xilli waqtigii galmudug sharciga ahaana uu dhammaaday wasaaradda arrimaha gudahana tafwiid iyo caddayn qoraala ay samaysay madaxweyne xaaf uu kula wareejiyey maxaa la yidhaahdaa wasaaradda arrimaha gudaha marka dee wasaaradda arrimaha gudahanu ajanabi maahana stiil waxaan ku noolnaha soomaaliya waxaan ku noolnaha dalkeennii waxaan ku noolnaha wasaaraddii arrimaha gudaha oo iyo qaranka marka waxa ay processka ay manage garaysay iyo qaabka ay u samaysay waxay ahayd un qaab soo dhaweynayay sidii galmudug xal looga gaari lahaa mana aaminsanay haddaan ayada gacanta loo gelin lahayn galmudug isxallin kartay oo shaqo wada yeelan kartay ama waajibka laga raba gudan kartaa inay jirtay haddaan ayada gacanta loo gelin lahayn oo dowladda federaalka inta lagu wareejiyey tallaabooyinkii la qaaday aan la qaban lahayn
xildhibaan cabdixakiin waan kuu soo laabanayaa. waxaan siinayaa xildhibaan shaacir sheegow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. shaacir, waxaad ka mid noqoto nasiib u yeelatay in 89ka xubnood ee baarlamaanka aad xubin ka noqoto. qoonda ahlu sunno si gaara loogu qoondeeyey ayaana weliba goobta ku fadhisaa oo aad ku timid, inkastoo hadda baarlamaanku 89kaba guddoon ay leeyihiin. welina waxaa muuqata in ahlu sunno xildhibaanada ka yimid iyo guddoonka aysan xoogaa isfahmin marka loo firay arrimihii guddiga doorashada shalay kala qaybsamay. maxay tahay dhibaatada weli xaggiina ka jirta oo aad baarlamaanka ula qabsan la'dihiin? wax weyn oo dhibaataa kama jirin. waa runtaa xildhibaanada galmudug waa xildhibaano wada qura, waa baarlamaan wada qura sida lagu talagalay ama sida ay tahaba. way jirtaa maalin dhaweed in guddigii doorashada markii la magacaabay aan ka koobnayn 5 xildhibaan oo ka timid ahlu sunna, 8na ka timid baarlamaankii 69kii odayaasha xulay. khaladka ugu weyn wuxuu ka jiray qaabkii loo xulay. markii aan dadweynaha la wadaago runtana aan ka sheegno siday wax u dhaceen, aniga malahaygu wuxuu ahay guddoonku inuu wax ku soo xuli doono baarlamaan guud ama hoo xisaabo 13 beelood oo galmudug ka kooban yahay ama garasho iyo aqoon ha lagu soo xulee. marnaba anigu ma jecleen in baarlamaanku guddoonku uu wax ku soo xulo 2 qaybood. khilaafka asalkiisana meeshaasuu ka yimid. ahlu sunna 5 la siiyey iyo 69kii odayaasha ay soo xuleen oo qaateen 8 xildhibaan. ahlu sunna markaas ayadana damac ka galay inay hesho guddoonkuna uu isku imaan karo doorasho gacantaaga ciddii is-sharaxdo in loo codeeyo oo dastuurka qabo. sidaa daraaddeed marka aan ku raadino wadahadal hoose iyo maslaxadna baarlamaanka intiisa kale ay nala garan waayeen sida sharciga uu qaban ay u raaceen ay yidhaahdeen waa loo codaynayaa. khilaafku halkaasuu ka yimid. xulista baarlamaanka lagu xulahayay xibnaha doorashada ayuu khilaafka ka yimid. khilaafkaasna waxaan saarayaa guddoonka oo u xulay qaab 2 qaybood oo aan ka kala nimid. aniguna aan jeclahay in loo xulo baarlamaanka guud oo ama beelihii aan ka nimid loo xulo ama baarlamaanka aqoon looga soo saaro dadka. marka adoo ku wata xildhibaan shaacir, ma moodaa in weli guddoonka baarlamaanka isagoo ahlu sunna xildhibaanada ka soo galay qancinaya in 5 xubnood ay ka siiyeen in guddiga ay ka mid noqdaan, laakiin weli ahlu sunna ay u muuqato in 20keeda xildhibaan ay awood muuqato xildhibaanada ku dhex ahaadaan oo ay caqabad noqoto? ahlu sunna way muuqataa. waxay door biday bacdamaa hawshii broseskii dheeraa la soo waday marna aysan hal xil guddoon aysan ka qaban kuwii lagu magacaabayay ama kuwii magacaawista galay ama kuwii soo xulidda galay ay midna qaadan. waxay kula dul dhacday qaybtii ugu dambeyda ee ahayd in la magacaabo guddigii doorashada, taasoo ay ka timid inay markaan han weyn ay uga jirto inay xilkaas qabtaan. ayaduna xilkii markii dastuur ahaan loo fiiriyo ama qaab ahaan loo eego sharciga uu tilmaamayo in doorasho gacantaaga lagu kala baxo. khalad jiro u ahay, maantana waa ka hadlay, dibna inaan u saxno baarlamaan ahaan aan u saxno waa rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo. waxaan siinayaa oo ku laabanaya xildhibaan cabdixakiin oo su-aalo badan aan caawa u qabno, sidoo kalena aan rajaynayo in daawadayaasha ama martida barnaamijka ayana su-aalo ka weydiin doonaan oo fursad aan sii doono. xildhibaan cabdixakiin, arrinta ahlu sunna oo kale markaan fiirino, arrinta madaxweynihii galmudug xaaf oo isaguna sheegay in kaalashada uu la laabtay oo si ay noqotaba iminka gaalkacyo ku sugan oo in la qanciyo u baahan. ahlu sunna weli baarlamaankii saameyn ku leh oo guddiyo kale soo saaraya, musharaxiintii oo qanacsaneen qaarkood. marka waxyaabahaas oo dhan isku soo duuduubto, xaggee loo socda ayaa isleeda galmudug baarlamaankeeda? waa su-aal fiican. horta ahlu sunna meesha ay ka timid horta waa inay jirtaa horta meel waxaan marka wada hadal la galo. adduunka ururo way jiraan, ururada iyo sistamka intay wada hadlaan ama dowladda iyay wax ku heshiiyaan. laakiin marka la heshiiyo oo wax la isku darsado ururkii wuu dhammaadaa. ahlu sunna hadday maskaxdeeda ku jirto inay galmudug wax ku darsato oo ay 20 xildhibaan ku darsato maalan, oo 20ka xildhibaanoo ay ku darsatay 69kii iyo 20 uu kala ahaado baarlamaankii,
oo go'aamada la gaarayo dhan ay ku salaysnaadaan qaab wax awood qaybsi horta dawladnimo meesha kama jirayso meesha urur ay noqonaysaa baarlamaanku waa hal baarlamaan hal guddoon uu leeyahay haddii sida maxaa la yidhahdaa xildhibaan shaacir uu sheegaya ay ku timid guddoonka laftirkiisu iyagoo fiirinaya ahlu sunna 5 xildhibaan hala siiyo 69kiina 8 hala siiyo oo sidaa loogu kala qaybiyey laftirkeeda khaladku soo sheegaya halkaas ka soo bilowday way dhici kartaa in xildhibaan shaacir ama xildhibaanada kale 20 xildhibaan ka midka ahaa guddoonka iimaan karaan ku xigeenka iimaan karaan xubnaha ay ka mid noqon karaan guddiyada oo la dhisayo guddiyada baarlamaanka dhexdiisa ka sameysmaya ee shaqooyin kala duwan qabanaya qayb ka noqon karaan laakiin waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan talada xildhibaanada baarlamaanka galmudug ka tirsan ayay ku imaan kartaa waxay ku imaan karaa qofku meeshuu ku jiray iyo positionkiisa inuu ka soo dhex baxo awood oo wax ku qabto wax ku hogaamiyo u yeesho kama imaan karta bannaanka in laga soo amro baarlamaanku ma noqon karo fiiri odagii soo qoray aniga jifadan ka dhashay xildhibaankeeda maalan odagii soo qoray hadduu xagga fadhiyo ee uu yiraahdo go'aanka aad gaaraysa aniga ila wadaag baarlamaana shaqeynay ma shaqeyn karo 69 kan odayaal baa soo xulay 20 kan odayaala soo xulay odayaasha kala duwan marka laakiin odayaashii markay soo xuleen oo ay soo wadada soo saareen waa inay ka haraan waa inaysan daba soconin waa inaysan tala ku yeelan waa inaysan ayagu directionka iyo meesha uu aadayo aysan saameyn ku yeelanin ahlu sunnana de waxaa la rabaa asalkii anaga ahlu sunna waxaan naqaan ahlu sunna oo khayr ka shaqeyso masaajidda joogto kutubta akhriso dadka khayrka barta inay ay macmacada soo galaan waxaa keentay xuruubtii iyo dagaalkii iyo mashaakilkii iyo shabaabkii la dagaalankiisii haddii dee shabaabkii dhammaaday laba mid laga rabaa ahlu sunna waana inuu cad yahay ishugaasi laba mid laga rabaa inay xisbi siyaasadeed furtaan oo dee sultada iyo maamulka iyo baawarka ay magac dawlad magac xisbi ku doonaan iyo inay meeshay markii hore ka yimaadeen u laabtaan oo waxay ka shaqeynayeen wanaag bay ahayd wayna ku filaada intii ay ka shaqeeyaan labada mid laakiin ma dhici karto ahlu sunna oo hubaysan oo ciidan iyo awood haysata oo dawladnimada garab taagan oo baarlamaanka qayb ku leh oo qaybta kalena cid la'aan la aqoonin inay isgarab joogaan ma dhici karto marka waxaa laga rabaa decisionka saxda inay inta ahlu sunna qaadato go'aan sax ay gaartay ayadoo ay ummadda u sheegto wax ay tahay iyo wax ay rabto galmudug de ma ay suurtagal ma aha galmudug ma xirnaan karto waan ognahay deegaankan iyo dadkan iyo waajibka shaqaday qabteen ahlu sunna oo markay shabaabka la dagaalameen iyo waxa ay guteen oo wanaagaha cid fiirsani ma jirto laakiin de waa inaadan wanaagaaga waa inuu ku soo dhamaadaa inaad wanaag ku dhamaystirto waa inaadan hoosteed dadka u haysanin markaad wax qabatay waxaad qabatay xal inay yeelato taa ahlu sunna waaye dhinaca murashaxiinta marar badan de waxaan maqlayay way kala duwan yihiin tafsiirkaad rabta si magacaad rabta u bixi laakiin murashaxiinta broseskani siduu u socday ayay xaq u leeyihiin inay wax ka dhex raadsadaan waxa ka dhex khaldanna waxay xaq u leeyihiin waxana khaldan inay yiraahdaan laakiin ul mugdiya inay tuuraan sax ma maalan annaga baarlamaanka ka tirsanahay kan federaalka waxaan u maleynaa markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la doortay oo 275 xildhibaan balaas 54 aqalka sare ay dooranayeen iyo markii guddoonka baarlamaanka la doortay 7 beri qiyaas inay ka yiraahdo u maleynaya mise ku dhow ayaa u dhaxaysay maantana 15 beri ayaa 15 maalin loo dhaxmariyay marka guddoonka la dooranayo iyo la doortay iyo marka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa la dooranayo marka waxaad moodaa si aan addu ka jirin ilaa hadda doorashooyinkii dhacayay iyo waqti ka badan waqtiyadii la siin jiraa la siiyay haddaad marka adiga u baahan tahay inaad kaambeyn garayso haddaad u baahan tahay inaad xildhibaankii la xiriirto jaanis iyo fursad kugu filan aad haysataa oo 15 beriye laakiin de haddaad inta tabartaadu kuu soo muuqatay aad isu aragtay inaadan xoogaa hadda sidii la rabo wax kuu noqon karin macnaheedu maaha inaad waxa dhan haraatiso macnaheedu maaha kursiga adiga aad ku fariisanaysaa inuu galmudug kaala qiimo badnaado macnaheedu maaha dadka iyo deegaanka iyo danahooda inaad baabi'iso dad Soomaaliyeed oo maanta cadow haysto oo duruuf adag ku jira oo xaaladooda ilmahooda ay shabaab tarbiyeynayaan oo ummadana ay dhibaato ku tahay ayaguna dhibaato ku tahay degan oo deegaano aad u badan oo waasac degan dhibaatada iyo xilka iyo kuleylka kugu haayay aysan ayaga ku haynin noloshii ay ku culus tahay marka inaad picture-ka si guud inta u fiiriyo qofka murashaxay oo wax raadinaya biyo wasaqa oo ka dhex kaluumaysta ma aha laakiin inuu picture-ka si fiican u fiiriyo hadduu maslaxad iyo danka dhexeli kar 69 xildhibaan ay wayna muuqatay shalay markii doorashadii la galay guddoonka baarlamaanka doorashadii dhacday waxaa ka muuqatay 41 iyo 47 kuraas lagu kala qaatay 34 iyo 54 lagu kala qaatay waxaa muuqatay tartan nadiif ah oo xor ah inuu ka jiray baarlamaanka dhexdiisa
dadkuna isku mid ma noqon karaan kaa horeeya adigu waad dhaliili kartaa waadna waxbaad ka sheegi kartaao wax waad tuhmi kartaa laakiin maslaxadda guudna in la qiimeeyo u baahan tahay danaha caamka in laga shaqeeyo u baahan tahay kursigaagana fakar gaara iyo shaqo kaa raba waa in labadooda isla socdaan cabdixakiin arrinta musharaxiinta haddaan su-aal kale sii raacsado ood ka dhawaajisay musharaxiinta in badan waxay ku soo celceliyaan xildhibaanada 89 ah 20na ahlu sunna soo xulatay oo si gaara kor uga ilaalsanaysa 69kana badi hadeesaba ku dhowaan waxa ay leeyihiin dawladdu iyana si gaaray u qoratay oo xogaay waa nooga gacan dhowda marka si aan fursad u helno xildhibaanada waxaan rabnaa in aan meel walba aan kula kulanno oo xildhibaanada waa xadidan yihiin ay leeyihiin marka su-aashaas maxaad uga jawaabaysaa horta 69 xildhibaan waa sax 20 xildhibaan ahlu sunna soo qortay laakiin 69 xildhibaan waxaan u maleynayaa murashaxiinta hadda tartamaya waxaa ku jira dadkii shalay maamulayay processkii cadaada markaan joognay ayaa qayb ka ahoo ku jira saaxiibaday baa ku jira marka waxaa cad odayaasha wax soo xulayay dood kamayna qabi karaan odayaashii shalay ayagu ay qoreen ee cadaada joogay ee soo xulay xildhibaanada ayaa maantana xildhibaanada jooga horta soo xulay oo 69 marka odaga anigu saaxiib waa la noqon karaa qofka xildhibaanka saaxiib waa la noqon karaa waa campaign aday ka rabta inaad kasbato laakiin odaga wax qoray waxaan ka fiirinaynaa odaga wax qoray odagii saxda ah ma yahay oo sharciga ahaa oo ahayd inuu wax qoro waa sax waa isagii adiga la kulanka xildhibaanka inaad aragto haddaad dee intaad guri campaign samaysatay aad gogol fidsatay xildhibaanku inuu kuu yimaado isagay ka go'daa xildhibaan xabsi ku xiran ma jiro xildhibaan cid u xaraysani ma jiro xildhibaanadu waa kuwa kafeteeriyada fadhiya hadduu shaaha cabay haddaad u imaanaysood meeshada ku sheekanaysanaysa aday ku khusaysaa haddaad guri geynaysa aday ku khusaysaa laakiin aqbalaadu xildhibaanadii ka timaadaa xildhibaan adiga laftirkaaga aad leedahay meeluu ku xiran yahay isagoo xorahoo meeshan taagan oo aad aflagaadaynayso laftirkaaga inaad wax ka doontaa marka horeba khalad ahaba marka xildhibaankiina wuu joogaa murashaxiina wuu joogaa cid kala haysa iyo meeluu xildhibaan ku xiran yahay ciddii jirta ayadaa sheegi karta laakiin marka dariiquu ku yimidna wuu caddaa meeshuu joogo xildhibaankuna wuu cad yahay awoodda ah inaad gurigaaga geyso iyo inaad kafeteriya ugu timaadana kumay xira dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin dowladeed midna kuma xiree adiga shakhsiyadaaday ku xiran tahay iyo saad u kaambayn garan karta saad gurigaaga u geyn karto iyo say suurtagal tahay inaad ugu dhawaato marka xaq adiga haddaad ka gaabisay wixii aad qaban lahayd ama qofka aad qancin weysay maaha inaad cid kaleeto markaas culayska saartoo tiraahdo waa saan iyo tilmaamo kale oo aan fiicnayn aad bixiso uma arko baarlamaanka galmudug ee curdanka ah ee hadda la abuuray haba yaraatee dariiqa uu ku yimid nadiif inay tahan aaminsanahay weliba waxaan aaminsanahay hababka ay wax ku imaanayeen kuwa ugu fiican inay tahan aaminsanahay yacni mar haddii oday soo magacaabayo mar hadduu reer hebel ku imaanayo marnaba xildhibaanku naqsi baa ku jira laakiin si guuda ugu jiraa qofkii aan rabnay ee ahayd mujtamaca Soomaaliyeed inay soo doortaan deegaanku inuu soo doorto saas inuu position ku yimaado tilaabada lama gaarin laakiin ilaa hadda qaabka wax ku yimaadeen ilaa carta laga soo bilaabo kuwa ugu fiican uu ku jiraa aan aaminsanahay qaabka hadda xildhibaanada lagu soo xulay ay ku yimaadeen waa mahadsantahay xildhibaan cabdixakiin marna waxaan su'aalaha sii doonaa ka qaybgalayaasha ama martida barnaamijka oo aan su'aalahoodana aad u tixgeli doono idinkuna aad uga jawaabi doontaan xildhibaan shaacir sheegow qoondada ahlu sunna xildhibaanada baarlamaanka ku yimid ka mid tahay maanta waad hadashay warbaahinta mar aad la hadasho waxaad sheegtay in wax walba baarlamaanka dhexdooda ee dhamaysanaya ama guddiga doorashada sharci lagu kala baxana uu jiro shalayna kulan waxaad qayb ka ahayd 5 xubnood oo ahlu sunna markii hore ka timid ee guddiga lagu soo diray doorashada oo arrintaasi aad u qaadacayay maxaa iska ka bedelay horta sideeda bannaan markii aad tahay baarlamaan marka hore kaliya shardi maaha in lagu dhammeeyo dastuuri wax walba xaq waxaa loo leeyahay marka hore in wadahadal lagu dayaa xaqiiqatan marka hore waxaan ku bilaabnay wadahadal iyo negotiation inaan ka galnaa qaabka loo soo xulaayo iyo wakhtiga iyo doorashada dhaceeda iyo cidda guddiga noqonaysa negotiationku cid walba waa u furan yahay in laga wada hadlo baarlamaanada adduunyada dhan bay ka jirtaa hadda dowladdaas britishka arkaydin oo dowlad weyn ah waxaa jirta waxyaabo badan oo baarlamaanka lagu dhammaynayo dibadda lagu soo xalliyaa iyadoo raalli la leeyahayna baarlamaanka inta laysu yimaado wixii lagu sii heshiiyey gacanta loo taago tii bay ka mid ahayd markii qaybtii naga soo horjeeda ay diidana doorashadii ma qaadicino waa midii maanta aan aqbalay ansixiyey raallina aan ku noqday waxaana ay farahaya dastuurka cod haddii la iiga guulaysto waxaa sharcigu uu farahayaa inaan taageero
haddaan ku adkaadana wuxuu ifarayaa in lay taageero isbeddelka halkaasuu ka yimid mooyaane wax kale kama imaan diyaar ma u tahay 30 bisha oo loo qoondeeyay ama loo qorsheeyay jadwalka markaa filan doorashada in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa la doorto inaad codayso oo aad tagto hoolkii ka sokaan shaqaleeya guddiga doorashadan ku jiraa beriba shaqadu waa bilaawahaya baarlamaankana waa bilaawahaya ma ihi codbixiyo kaliya guddiga kaa guulaystay ayaad ama codka aad ku kala baxdeen aad la shaqayn doontaa sharciga ay faraya hadduu adkaado inaan garab istaago lana shaqeeyo hawshana la dhammaystiraa taas waa iga ballan diyaar baan u ah aad u mahadsan yahay waa u soo laabanayaa martida waxaan iminka fursad siinayaa ka qaybgalayaasha oo su-aashooda ama su-aalahooda soo gudbinaya waxaan ka codsanaynaa in qofka hadlaya ee su-aasha weydiinaya martida barnaamijka in ay soo koobaan magaciisana uu ku bilaabo ama magaceeda kadibna su-aasha si toos waxa uga jawaabi doona mas-uulka ay weydiisaan waxaan ugu horeyn siinayaa hay-adda soo dhawow soo koob su-aashaada soo gudbiso cabdixakiinna mid baan su-aalayaa shaacirna mid baan su-aalayaa magaca magacayga sacdiye bedel diirshaa la yidhahaa waxaan ka mid ahay shacabka galmudug cabdixakiin waxaan su-aalayaa xildhibaanada galmudug baarlamaankii labaad ah kuwa wax dowladdu gaar u wadata miyaa jira sida wararku nagu soo gaarayaan mise waa hadal aan waxba ka jirin kaas taas adaan kaaga fadhiyaa shaacirna waxaan weydiinayaa xildhibaanada ahlu sunna ay soo xulatay ahlu sunna ma waxay ka mid tahay 11 beelood mise waa dowlad ka gaar iyo xisbi ka gaara ilaa waxaan nahay annaga 11 beelood meesha ku aruursan yihiin waana dad la jooga waxayna ka mid ahaayeen haddii la dagaalamay dad oon reer galmudug ay ahaayeen dagaalka sunna wal jamaacana waa mashaa'iq badan oo meel kasta isaga timid marka waxaan aan way ku weydiinaya waxa gaarka ka dhigay oo gaar u soocay ayaga laftooda waa isku xijinaynaa si ay uga jawaabaan su-aalaha dhowr qof baa hal maraa siinaynaa waxaan siinaynaa haddana mas-uulkaas dhexda ku jira soo dhawow بسم الله الحمد لله magacayga waa xuseen abubakar walaalkay xildhibaan shaacir sheegow waa mahadsan yahay waxaa kaloo mahadsan doctor cabdixakiin waa macalin axmed xildhibaan federaalka isna waa u mahad celinayaa sida sharaxada leh ay ugu wada hadlaan labadooda waxaa marka aan rabaa inaan su-aasha koowaad weydiiyo xildhibaan shaacir wuxuu nagu yidhi hadda macnaha markii horena waxaan damacnay annaga anoo ka socda khaladaa jiruu yidhi oo ka yimid wuxuu ahaa guddoonka guddoonka macnaha ma dalab oo khalad oo macnaha sharci oo macnaha waafaqsan sharciga ka baxsan sida muxuu ahaa awood qaybsiga baarlamaanka markii hore beelaha wax lagu qaybsaday sunna wal jamaacana waxaa la 20 ay leedahay 69 xubnoodoo beeluhu soo xuleen iyo 20kii sunna wal jamaaca ay soo xushay ma dalab ka yimid sunna wal jamaaca in shanta guddiga lagu daro oo macnaha 13 guddiga mase guddoonka kala soocay mase sunna wal jamaaca ayaa dalbatay in muxuu ah 5 la siiyo su-aashaas waxaan rabaa inuu noo caddeeyo haddii guddoonku ay ayagu kala sooceen khalad guddoonka iska leh maadaama su-aasha aad weydiisatay jawaabtii adigu waa ku xariirin qofka saddexaad ayaan siinaynaa kadib jawaabta ayaan u gudbaynaa si aan fursad kale u helno oo aan mar kale aan siino su-aalaha ka qaybgalayaasha marka saddexdii qofba maraan uga jawaabi doonaa su-aalaha annagoo u gudbinayna martida barnaamijka haye soo dhawow magacaaga iyo magacaygu waa cali xaaji nuur waxaan marka hore salaamayaa xildhibaan cabdixakiin iyo xildhibaan shaacir xildhibaan cabdixakiin aan rabaa inaan marka hore su-aal weydiiyo
xildhibaane waxaad ka warqabtaa caawa markaan fiirino galmudug waxaa yaalla 3 jadwal doorasho oo doorasho lagu qabanayo maalmaha soo socda dowladda adigu aad ka mid tahay su'aalo badan oo loo jeedinayana aad adigu dhabarka u dhiganayso galmudug maalinkii imaanaysa waxaa ka jiray hal madaxweyne waxaa ka jiray hal sistemaa ka jiray caawana waxaa loo ballansan yahay jadwallo kala duwan in la qabto waxaa imaan doona haddii sidaan ay wax ku sii socdaan 3 madaxweynea imaan doonto nin baa waxaa laga sheegay mar waliba tilaabo wanaaga aan hore u qaadno 3 tilaabo xunxun baan gadaal u sii qaadnaa waxaa moodaa mararka qaar waa aaminsannahay dowladda inay dadaal iyo waxqabad ay ka tahay laakiin haddana waxaa jira mararka qaar degdeg iyo waxa la yidhaahdo talada oo aad u kooban oo dadkii mudnaay aan waxba laga siinaynin ustaadi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo muranka ugu weyn maantay uu ka dhashay dooda ah ahlusunna iyo dhinaca kale xildhibaanadii 69 ahayd waxay ka dhalatay guddoonka guddiga su-aashu waxay tahay haddii in 20 xildhibaan la siiyo ahlusunna waxaa biday ama yimid xalaa loo arkaa insaan la siiyo oo loo arkaayo inuu ku imaanayo problemka markaas taagan ama doodii taagneed inay ku soo afjarayso haddii guddoonkii la siiyo ahlusunna oo la yidhaahdo guddoonkii adinkaa laydinka dhigay problemka ay keenaysaa maxay tahay waa su-aasha koowaad su-aasha kale waxay tahay qof waliba ee ku guulayso doorashada galmudug haddii ustaad cabdixakiin caawa aad ahaa lahayd musharax waxaad jeclaan lahayd haddii aad guulaysato inaad hogaamiso galmudug dhammaystiran dhammaanteed waxaad jeclaan lahayd madaxweyne kaa horreeyey inuu xilka kugu wareejiyo sistamka adigu aad ka mid tahay galmudug ka waday ololaha maamul u dhisidda aadna la shaqaynaysay waxay ku ballansan yihiin 30 bisha inay doorasho galmudug ka qabtaan madaxweynihii galmudug sidaad ogtahay gaalkacayuu jooga weli ma hayno ama ma aanaan maqlin waxa la yidhaahdo xal socda oo madaxweyne xaaf sistamka loogu soo daraayo ama dhuuso mareebku imaanayo weli ma hayno ma waxaad raalli ka tahay ustaadii in aad u dhiibtaan madaxweyne galmudug qof aan haynin qof xil ku wareejiya iyo galmudug dhammaystiran intaba dad badan oo xildhibaano ah ama shaqaale dawladeed ama broseeskan kaabaya 30 bisha 31 diyaarada xamar u raaci doona maxaad rabtaan inaad u dhiibtaan qofka biri systemkan qaban doona halkan ku guuleysan doona aad iyo aad umahadsantahay ustaad shukran aad ay umahadsan yihiin dib aan ugu soo laaban doonaa ka qaybgalayaasha barnaamijka fursadda waa inay sii doonaa su'aalihiina hadda waxaa su'aalada soo gudbiyey 3 ka mid ah xuseen iyo sacdiyo iyo cali waxaan rajaynayaa in su'aalaha qaarna la weydiiyey xildhibaan sheegow inta badanna la weydiiyey xildhibaan cabdixakiin macalin axmed xildhibaan adoo noo soo koobaya bal su'aalahaas iyo jawaabta aad ka bixinayso waayahay aad umahadsan tahay horta marka koobaad sacdiya baarlamaanka 69 dowladda miyaa leh saasaan aan u malaynaa inay xildhibaano dowladdu leedahay miyaa jira horta dowladdu xildhibaano u gaara macnaha dowladda ama ay faragelin ku samayso iyadu soo xulatay ama iyadu ay si gaar u wataan horta waxaan u malaynayaa maalin dhawa doorashadii dhacday waxay muujinaysay cid gaaroo wax lihi inaysan jirine waxa baarlamaanka jiraahay inuu baarlamaan dadka Soomaaliyeed gobolkan degan ka yimid uu yahay awoodiisa iyo qaabka uu isagu u fulinaayeen inuu isagu jaan goynaya ka muuqatay doorashadii ugu dambeysay Soomaaliya dhacday dowladdu dadkii dalkay mas'uul ka tahay laakiin shaqadii la qabtay iyo hawshii ka dhacday dhuusamareeb ee odayaashu wax ku soo xuleen horey baan u sharxay qaabka odayaashu ku yimaadeen iyo qaabka ay dadka u soo xuleen ma ii muuqato marka xildhibaano dowladda meel ugu xaraysan iyo kuwa dowladdu aynan lahayn oo kala jiraahay ma ii muuqdaan xildhibaano galmudug oo qabaa'ilkii ay galmudug ka koobneed ka yimid xorriyad si ahna qof walba uga kaambeyn garaynayo ma arkin murashaxiinta ka mid ah oo jiifo dhahay ani 69 xildhibaana ii joogta tilaabo ma qaadayo ololaa ibar ka dhiga mid walba waa ordaya mid walba codow raadinaya mid walba tartan uu ku jira marka nin hurdayo dhahaya aniga 69 ii joogto dawladda 69 isiinaysa horta ma aanan arkin marka waxaan isleeyahay haddii qof haysataa ii jirto qof jiifto diyaaradda maalin uun lagu keeni lahaa
marka campaign iyo looma baahdeen iyo orodka socdoo dhan marka in 69 xildhibaan iyo 20 kilo isku daray 89 xildhibaan oo galmudug leedahay qof walbana uu xaq u leeyahay inuu ka campaign gareeyo ayaguna ay xaq u leeyihiin qofkay rabaan inay codka siiyaan inay saas taan u arkaa su-aasha uu weydiiyey cali xaaji nuur saddex jiko doorashaa ka jirta galmudug waa su-aal aad u fiican horta jikada aniga laftirkeygu de haddaan inta meel istaaga jiko furto haddii lay dhaho jikaa jirta maogtahay mushkila iyada laftirkeedaa mushkilad la abuuraya annaga meeshaan saan sheegay juuna la imaaday juun ilaa maanta waxaan u malinayaa around 8 bilood waayo 8 bil marka haddii aan wax la xalinaynin haddaan la rabin dad in la isku soo jiijiido haddii la doonaayo qolo gaara awoodda in loo maroojiyo horta 8 bilood ma qaadateena maalmaha lagu xallin lahaa laakiin waxa 8 bilood gacanta lagu haya waxay ahayd galmudug aan kala laalaadinay isla socota in la dhisay ayaa asalka ahayd haddii marka raqabaadka dadka qaar aan la waxa ay rabaan aan la dhammaystiri karin ayna nihaayo lahayn aysan meelay ku dhammaatay aysan lahayn galmudugna uma fadhinayso dadkuna u fadhin maayaan waa in go'aan saxa la qaato oo lagu xalinayo wixii 8 bilood xalismi waaye waa inuu go'aan jiraa lagu xaliyaa haddayna wixii xalismi tusaale ahaan su-aal wuxuu weydiiyey maxaa ahlu sunna haddii la siiyo guddoomiyaha guddiga maxaa halaabi lahaa waxba ma halaabeen laakiin siday tahay inay ku timaado ma waxay ku imaanaysaa in la yidhaahdo haddaadanna isiinin ma kula shaqaynayo mase waxay ku imaanaysaa shukaansi iyo walaalo codka isii baarlamaanka dhexdiisa ani waxaan aaminsanahay waa hay-ad ka kooban guddoon iyo xubno qof kasta oo wax ka dhex rabaana waa inuu inta wax la leeyahay intuu wax weydiisto iyaga ka qaataa marka waxaynan ku imaan karin in la yidhaahdo amar laga dhigaysan ku imaan karin xuquuq amar ku imaan karta maana waa xuquuq isii walaalow ku imaan karta iyo isu garasho ku imaan karta isu codayn ku imaan karta waaye sidii ka dhacday guddoonka doorashadiisa oo kaleeto waxba ma halaabeen haddii la siin lahaana wax halaabi lahaa ma jirto laakiin waxay ka fulaysay 13 xildhibaan ee guddiga doorashada ku jiray inay u gartaan qof ka mid ah ahlu sunna raggii ka yimid oo ay yidhaahdaan adaa guddoomiye noo ah codkooda ay siiyaan haddii aynan dhicin annaga ka shacab ahaan ka dowlad ahaan ka murashax ahaan xaqeennu waxaa waaye inaan codka dimuqraadiga aan garab istaagno waay codka saxda ah ee 13 xildhibaan ee doorashada galay ee guddoon doortay aqlabiyadna ku doortay kaasay tahay in la saxga sida xildhibaan shaacir hadda uu sheegay tiimuu ka mid ahaa laakiin systemkii iyo dariiqii loo maraayay in la codeeyo markay qof u heelisay qofkii in lala shaqeeyo inay waajib tahay ayuu qof kastaa dareensan yahay maalin walbana dee marka la codeynaya lama codeeyeen sida aad rabta haddii la samaynayo waxaa loo codeynayaa in laba qof loo kala codeeyo qofna uu guulaysto qofna uu guuldaraysto baarlamaan haddaad ka mid tahay marka waa inaad u bisishahay inaad guuldaradana aqbasho guushana aqbasho marka ahlu sunna in xubno gaara la siiyo baarlamaanka dhexdiisana anigu mid totally dadka ka soo horjeedaan ku jira mar haddii baarlamaankii galmudug uu dhismay baarlamaanka galmudug dhexdiisa waa inaysan groups ka jirin oo ama ay ideolojiyad isku raacsan ama hadday xisbi isku raacsan yihiin ha waan ogolahay laakiin ideolojiyad iyo mabaadi iyo afkaar gaar ay aaminsan yihiin oo inta kale aaminsanayn cid isku raacsan baarlamaanka dhexdiisa inay ka jirtaa khalad waay in qaabkaas baarlamaanka loo dhisayn gareeyana khalad waay inuu u samaysmaa khalad waay marka taas mid waaye madaxweyne xaaf arrinta ku saabsan madaxweyne xaaf dee broseska isagaa fasaxay isagaa yidhi ha socdo isagaa ogolaaday isagaa wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejiyey marka uu yidhi waan la soo laabto gaalkacyo tagayna dee talaba fara kuma jirinba wasaaraddii laftirkeedaa lagala wareegay wasaaraddiioo intay ka wareegtay taladii galmudug ku wareegtay oo xildhibaano galmudug ay ku wareegtay oo odayaashii dhaqanka xaaf shalay baarlamaankii doortay keenay mar labaad intay taladii la laabteen iyagu ay xildhibaanadii soo xulayaan oo ay gacanta ku hayaan ayuu yidhi broceskii waan marka meelow ka laaban karo ma jirin odagu markii hore uu fogeeyey arrinta marka dambana dee meelow ka celiyahay ma aynan jirin laakiin wuxuu xaq u leeyahay maamuus iyo karaamo iyo sharaf in lagu karaameeyo lagu sharfo uu xaq u leeyahay inuu xil wareejiyo inuu asaga laftirkiisu dee waxa weeyaan nin odaya oo galmudug ka soo shaqeeyey waaye waqti fiican galmudug dhexdeeda ku soo qaatay madax ka soo noqday mas-uuliyaddii ugu sarreysay galmudug ka soo qabtay isaga laftirkiisaa waajib saaran waxay tahay inuu waxaa intuu ilaaliyo inuu si mas-uuliyad iyo sharaf ku jiro inuu u wareejiyo xilkii u hayay laakiin hadda galmudug kama kabato anigana dhinacii goy iyo anigana meel maxayse tahay xalka muuqdahay xalka muuqdaa waxa waaye galmudug waxay u baahan tahay maantay meesha ay joogto baarlamaan ay leedahay
hay-addii sharci dejin ee ugu sarreysay leedahay iyaday tahay inay go-aan ka gaarto cid walbaana waa inay iyada ku qanacdaa wixii ay soo saarto wixii xal ah insha allah barnaamijka marka uu noo gabagaboobi rabo xildhibaan shaacir adiga ku dhahdaa su-aalo ayay ku weydiiyeen ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ahayd su-aal uu ku weydiiyey xuseen oo ah in 5 xubnood leena siiyo ahlu sunna guddiga doorashada baarlamaanka laga siiyo ma iyagaa doorto ku cadaadiya guddoonka base guddoonka ina siiyey maxay sata ujeedadeeda waxaan ka hormarinayaa su-aashii sacdi aan umalaynaa sacdi horta ururka ahlu sunna waljamaaca wuxuu ahay urur muddo ka talinaya deegaanadan waktigana may waa kuu soo wadaa waktigan ugu dambeeyana wuxuu noqday inuu ka qayb qaato dhismihii labaad ee galmudug sida aan ka warqabnana fagshanno badan oo adduunyada ka tirsan ama ururo badan ama dowlado badan oo adduunyada ka tirsan markay kooxo ama jabhado ama ururo ay ka dhashaan ee la rabo qaab dowladeed in loo bedelo waxay noqonaysaa in laga qaybgeliyo siyaasaddii ama taladii wax looga daraa ama abaalgud ha looga dhigo ama soo jiidasho ha looga dhigo 20 xildhibaan bay waxay ku heshay ahlu sunna inay uga soo mid noqoto baarlamaanka labaad ee galmudug hadalkayga maantana waa ku jirtaa daayana mar baan taabtay haye maya waa culimmadii reer galmudug haye waa culimmadii galmudug ahaa bise waa kuwa ka gaar maayo waa culimmadii galmudug waana dadkii galmudug baana 11 beelood baana ka midnaan meel kalena kama imaano cerka kama soo dhicin qaybtii wax lagu qaybiyana waad ka garan kartaa waxaan ku fahmay ma 11 qabiil maadaama ay kamid tihiin maxaad ugu soo doono weydaan maxaad gaar ugu taagan tihiin oo 20 gooni la kugu siiyay 20 goonida waxa lagu siiyay waa abaalmarin loo siiyo loo garto lagu soo dumahay wax kaloo meesha ka jira ma jiro su-aashaas waxaan u malaynaa inay intaas iga kaabsoontay waxaan u malaynaa xuseen baa ii soo haray xuseen sida aan ka wada warqabno guddoonku awoodda ugu sarraysa maanta dalka guddoonka baarlamaanka noo haya maanta cid la doortay galmudug dhexdeeda waxaa ka jira guddoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen hawshaan hadda ka hadlaya aan tilmaamana iyagaa gacanta ku hayay ama la tashi how aadaano culummada iyo mashaa'ikhda ama ha ka gaabsadaano xaqa wuxuu saaraya iyo mas-uuliyadda ayagay ahaayeen waxaa dhibka ka yimidna waxay ahayd qalinkoodii iyo dadka ay magacaabeen haddii guddoonku uu talada leeyahay ou talada asaga ay ka timid anigu layma dhaheen doodaana ma keenan sharciba ay qaban lahay laakiin markii la yidhaha shiiqaa ku soo xulay anigu shiiqa waamirtiisa markaa waa daafacaya laakiin haddii la yidhaha baarlamaan baa tay waadna dhaaratay guddoonkii baana ku magacaabay waa midda aan maanta ku taagan oo kuleeyahay berri shirka waa kaga qayb galahaya haddii baarlamaanka laga dhowro wax faction la yidhaah ee aan wada noqono baalkii ummad isu wada timidee 89 xildhibaan ee magac kale uusan jirin ee aan ka gudubno wuxuu ka yimid xagga iyo wuxuu ka yimid jufa hebel iyo wuxuu ka yimid ahlu sunna ka gudbaa waxaan qabaa sharciga ay qabanahay waana u hogaansamahayaa marka waxaan u malaynaa waxay noo noqotay tallaabtii ugu horreyday iyo khaladka ugu horreyda oo aan ka faa'iidaysanayno inuusan dib dambe u soo noqon arrintaasna marka waxaan caddaynaa in guddoonku asagu oo la tashi intuu aado culummadee loo soo dhiibo xildhibaan shaacir haddaan su-aal raacsado waxaad ka mid ahayd 20 xildhibaan ee ahlu sunno ka soo galay inkastoo hadda baarlamaanka isku mid yahay oo guddoon leeyahay oo doorasho aad gasheen awaamirta guddoonkana inaad qaadataan ay muhiim tahay oo sharcigii gudaha la ilaaliyo 19 xildhibaan ee kale weli qaabka u socdaan kuma ay qancin adiguse waxaad ku qanacday inaad gudaha lagu kala baxo mar haadisa 19 xildhibaan ee kale inaad ku qanciso isku dayday in ay nidaamka shuruucda baarlamaanka raacaan oo gudaha wax walba lagu xalliyo intii banaanka la isku haysan lahaa xaqiiqatan bayaankii maanta aan u diray ka mid ahaayeen haddaad dhegaysateen iyo haddii kale aan ugu baaqay inay nimanka walaalahay ee saaxiibaday
19 kale ay nagu soo biiraan berrina aan shaqadii wada qabanno baarlamaanka in aan wada tagnaa jawaabteedu diidmo negative iyo positive berri bay caddaanaysaa haddii baaqayga ay ku qanceen saaxiibaday berri baarlamaan baan leenahay waxaan leenahay guddiga doorashada qaar baa igula jira 4 kale ah hadday berri soo xaadiraanna baaqayga way qaateen waana ku faraxsanaa waana rajaynayaa haddii ay imaan waayaan su-aashaas iga dhigayo wixii aan ka dhihi lahay aada umahadsan tahay xildhibaan shaacir sheegow waxaan ugu laabanaynaa dhinaca martida barnaamijka ama ka qaybgalayaasha ugu horeyn waxaan siinayaa deeq kadib waxaan ku xijinayaa hodan kadibna waxaan ku xijinayaa macalinka aada u mahadsan tihiin deeq soo koob su-aashaada madax bannaan waxaan kaloon salaanta ku khatimayaa marti sharafta ka soo qayb gashay oo waqtigeedu usoo hortay inay barnaamijkan quruxda badan qayb ka noqdaan su-aasheedu waxay tahay waa koobayaa maadaama baarlamaanka galmudug amase mudanayaasha galmudug oo 89 xibnood ka kooban ee la doortay caawa guddoonka leh ay aqlabiyad cod 50 zaa'id waaxid waxa la yidhaahdaa aqlabiyad cod ay wax walba ku inta badan ay ku ay ansixinayaan haddiiba aan qadarnay in sida laga dhigay xaggana ay 5 tahay oo culimadiinka 20 ka socota 5 ay tahay xaggana ay tahay 8 soo codku xagga uma badan mase xeer jajabkiyaan weligeen daba soconaynaa waa su-aal tan labaad oon rabo inaan ku daro maxaa diidaya in aan caqliyadda inta shaqaydo aan guddi doorasho oo 7 beri amase wax usbuuc ka yar joogaya maxaa diidaya inaan sida saxda ah haddii codkii looga batay inaan ku raacno aayaha galmudug iyo dalkay dadkay deegaanka aan ku badbaadino labadaas su-aal aan qaboos deeq aad u mahadsan yahay waxaan siinayaa hodan waxaan codsanayaa ka qaybgalayaasha barnaamijka in su-aalaha qaar oo annaga aan weydiinay mas-uuliyiinta martida barnaamijka ku ah amaba kuwo u eg ay weydiiyeen ka qaybgalayaasha inaanna soo celcelin oo aan wax cusub ama su-aal cusub oo annagana noo faa'iideynaysa muhiimna ay ahaaleed in la weydiiyo mas-uuliyiinta aan weydiino oon waktiga ka faa'iidaysano haye hodan soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم لما هو حسلام سلام مش سكوت سميت مجاعي وهذا نعرف نقال حسلام حلبان كنا فدرالك يا حلبان قلبي وحن ودين يا حلبان شاعر ما داب حلبان دي بيلا يجوك تتباطن بيلا يجوك سقالي طبعا ما نرتاح دور الشدة يحبك أسقطه إن ما داب كان كورك بديها تتباطن حلبان in 19 xildhibaan u baaqanaysa doorashada galmudug ama ku qanacsan yihiin inay 19 eego ah in aan loo joojinin sababtoo tahay 19 codku wadku markuu ka badan yahay doorashada in loo wadayo horay aysan hadday qayliyaan hadday haraanba inaysan waxba aysan dhibi karin see kula tahay macalin maxamed ayaan siinayaa inuu raacsado kadib waa soo wareejinayaa mikrofonka بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين دمانتين حلبانك فدرالك حلبانك ستيتك حلبانك الشرف تيفيga ودادية برنامج برنامج مفتاح العشري سؤالي قارئ مفتاح عبد حلبان شاعر هو ترجع لي عرفت أشكو بدنا ويديو حلبان عبد الحكيم أشاس أنا ويدينا يا وحي تكو waxaa caawa markii koowaad bacd iftaax uu weydiiyey inay xagga dawladda ay ka jirtay caqabad badan oo dhanka xildhibaanada ay dadkii qaylo badan ay ka jirto odayaasha ay gacan muruqsi badan uu ka jiro inkastoo su-aashaas uu xoogaa naa qanciyey xildhibaanku weli waxaan dareensannahay odayaal caan ah oo la yaqaano oo saxiixayaal ah iyo sidoo kale qabiilaad badan inay aad u qaylinayeen baraha bulshada iyo dhan walba xildhibaan cabdixakiin mudane ma waxaad leedahay qayladaas mid jirta maahan tan kale barnaamijkan soo kordhay oo ah khilaafkan hadda soo dhex galay baarlamaanka ee labada garab ah
maadaama aad tihiin golihii sharci dejinta ee ugu sarreeyay dalka maantana aad ku sugantihiin caasimaddii hawshaan aad waqti badan jiddi badan ku soo bixideen maxaa inkaa qorshaysan ma inaad dib xaliskiisa u gasheen aan qorshaysan maxaa inkaa qorshaysan kaas waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaan shaacir waa ku mahadsan tahay si wanaagsan ood horta go-aanka u qaadatay ood ummaddaas inaad aad u raacdo ummaddaada u raacdo aad go-aanka u qaadatay aad u mahadsan tahay laakiin su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay maadaama aad system aad ku jirtay baarlamaanka meel aad ka soo gashay intaadan miidiyaha marsiin oodan jawaabta aadan miidiyaha ugu dirin 19 xildhibaan oo saaxiibada ah maqan ma la fariisatay oo ma la xiriirtay maadaama shalna aad ka soo dhex muuqatay markii khulaafku imaanayay waan fiirsanaynay waan arkaynay baraha bulshada taallay adoo shan ku ah oo weliba kursi una weyn ragga inta la fariisatay waxaanu nama qanciyaan ummadda uma qaadmaan ummaddeena aan dhinac ka raacna ma tiri mase inta seexatay kugu soo dhacdaad baraha bulshada u marsiisay taas waxaan rabaa inaad aan soo koobno macalin waa tahay dhinaca martida ayaan usoo wareejinayaa waxaan rajaynayaa in su-aalo iyo talooyin ay iskugu jireen deeq ayaa ugu horreeyey iyo hodan oo ku xigtay waxaa ugu dambeeyey macalin maxamed su-aalo xoogaa kala duwanna way weydiiyeen xildhibaan cabdixakiin ayaan ugu horreyn ka hormarayaa bal inuu jawaab faahfaahsan ka siiyo qaybgalayaasha su-aalaha qaar waxaan u maraynaa qaarkood waxaa la weydiiyey xildhibaan sheegow oo u gudbi doona laakiin xildhibaan cabdixakiin oo ka hormara macalin maxamed ani su-aal weydiiyaan malaynayaa macalin maxamed laba arrin oo weydiiyey mid waxa weeyaan qaylada odayaasha waxaan rabaa inaan odayaasha inta aniga aan dhegaystay 3 oday baan qayladooda dhegaystay 3 oday oo meediyaha isticmaashay oo hadlay 3duba maxay ka hadleen maalan anoon ayagii magacaabin laakiin ishuugay ka hadleen aan rabaa inaan sheego naxtay mid 135 oday buu ku jiray wuxuu rabay inuu saxiixa galmudug ka noqdo kama tiid baa layidhi kuma qancin afku furto wuu hadlay wuu dhaliilay processkii sidii wax u socday mid saxiixu ahaa galmudug saxiixa ka ahaa laakiin xubintuu soo xuli lahay baa ahlu sunna qaadatay qolo kale oo jifo kale xubinteedu yidhi inaan saxiixaan rabaa xaqna uma lihidaa la yidhi afku furto odayaasha ibni aadam waay horta dadkay ka mid yihiin malaa'ig maaha maxaan ku caddee karnaa inuu saxiixay jufo kale ma raba anigu inaan dee aan hadda ama details kursi hebel oo ahaa laakiin waad baari kartaan iclaamiyiinaad tihiin waad shaqo aad garanaysaan waaye waad soo ogaan kartaan laakiin aniga waxaan kuu hubaa odayaashii qayliyey inay sidaa ahaayeen mid 135 ku jiray oday maxaa la yidhaahdaa ka mid ahaa maxaa la yidhahdaa kursi la qaatay ma ahe kursi kala rabay inuu saxiixo iyo oday aan ku jirin saxiixayaashii cadaado laakiin nabadoon ahaa oo nabadoon beeshiisoo la yaqaano ahaa isaguna rabay inuu saxiixo noqdo qof cusubna lama rajisgaraynaynin oo lama qoraynin intaaba waan arkan runta anigoo idaacadaha ka hadlay laakiin intaba si dhaba markii loo fiirsho khaladkooda dowladi ma lahayn khalad waxay ahayd ka jira xagga maarata qofkaani waxa isaga u maleeyey inuu xaq u leeyahay marka dee taasi processkana ma dhaawici karto khaladna ma noqon karto dadka kaleeto odayaashaana dee waa kuwan inji ku xaraysan maxay ahayd meesha shiir kale ku xaraysan oo shaqadooda gutay oo waxay saxiixa lahaayeen saxiixay ilaa odayaashii uun dee waxay saxiixeen waayeenoo xaggii looga wareejiyey mooyaane marka horta aniga odayaasha qaylinayay oo la sheegayo waxaan u arkaa inay wax walba oo dhacay horta qof ku doodaya ma ihi mana suurtagal ma aha wax ibni aadan ka shaqaynayahay 100% bay saxnaayeen cid dhahaysaa ma jirto laakiin waxaan ka hadlaynaa saamaynta wix ay yeelan karaan aniga waxaan marar badan ka mid ahay baarlamaanka afrikan ku jira waxaan aadaa dowladaha afrika 55 dowladooda waxaan u aadnaa doorashadu markay dhacayso observers dadka kormeerayaasha
ayaan marar badan ka mid noqdaa lama qiimeeyo processkani inta uu ku jiro iyo electionka iyo doorashooyinka intuu socoto lama fiiriyo maxaa khaldamay lama fiiriyo waxa khaladaa jiraya aad u tiro badan laakiin waxaa la fiiriyaa khaladka dhacay saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa hawshii guud ma wuxuu noqon karaa khaladku ma khalad weyn oo dhaawici karaa wixii dhacay mase waa khalad aan dhibaato iyo dhaawac u geysan karin wixii dhacay marka natiijada waxaa laga fiirinayaa wixii galmudug ka dhacay ee doorasho ahaa ee xildhibaano lagu soo xulay ee odayaalahoo la xareeyey dhaawac miyay u geysan kareen broceskii guud iyo wixii socday waa maya odayaal cabanaya inay jireen shaki kama jiro inay xaq u lahaayeen in la qanciyo ugu yaraan shaki kama jiro laakiin inayna qanci karinna way dhici kartaa oo duruufta iyo xaaladda iyo go'aamada siyaasiga ah ee la qaatay oo saamaynta ku yeeshay iyaga inayna qancin karinaa dhici karta khilaafaadka maxaa ka qorshaysan in laga qabto aniga dee waan sheegay waa cadiya arrintaani galmudug waxay yeelatay waajib cid walba saaran waxaa ahayd galmudug intaan baarlamaan aynan yeelanin waxay ahayd in go'aan loo gaaro laakiin mar hadday galmudug baarlamaan yeelatay baarlamaankii baa go'aan gaaray go'aanka uu gaaray waxaa ugu horraysa inuu doorasho maalin u xadido uu yidhi maalin heblo ayaa doorasho dhacaysa cid kasta waxaa laga rabaa jadwalka ay soo saaray golaha wakiilada ama golaha baarlamaanka galmudug uu soo saaray cid walbaaba kaasaa xaq loogu leeyahay inay ogolaato inay raacdo inay isaga dhexdiisa wax ka raadiso laakiin cad ama dowlad federaala ha noqoto ama xildhibaan federaala ha noqoto ama dad shacaba ha noqdeen cid xaq u leh maanta kadib inay go'aan u gaarto galmudug ma jirto go'aan waxaa xaq u leh hay-adda dhisantay oo ah hay-addii ugu sarrayso sharci dejinta ayadayna tahay xagga la aadaya inay go'aan ka gaarto marka aniga dariiqo ii qorshaysan ama aan u malaynaya inay qorshaysan tahay ma jirto mana filaayo in cid damboo loo joojinayo ay jirto leannu qofkii qancayaa la qanciyaa 8 bilood waxay ku filan tahay in wax la qanciyo 8 bilood waxay ku filan tahay in laysbarbariyay ku filan tahay laakiin intaan kadib looma adkaysan karo looma dulqaadan karo lama sugi karo baryo intaas ka badan lama sugi karo qof waxa uu ka xanaaqayo aad taqaano waxa uu raadinayo ay taqaan ummaddan Soomaaliyeed lama fahamsiin karo xildhibaanada lama fahamsiin karo mana u maleynaya xataa 19 xildhibaan marka ustaadka laga saaro xataa caaw inay fahamsan yihiin waxa la isku khilaafsan yahay waxa la diidan yahay waxa la rabo iyo meesha loo socdo midna inay ku qanacsan yihiin ma u maleynaya marka qof iyo laba iyo group midna galmudug uma xayirnaan karto hay-aday leedahay sharci dejin iyadayna tahay inay go'aankeeda u gaarto cid walbana waa inay iyadaas ixtiraamtaan loogana dambeeyaa shaqadooda waagaag cabdixakiin aad u mahadsan yahay xildhibaan shaacir sheegow su-aalna waa lagu weydiiyey oo weliba marka la fiiriyo si gaar adig kuu qusayday maxaad uga jawaabaysaa bismi illaahi raxmaan raxiim horta waxaan hormarinahayaa gabadha sodan su-aasheedii ahayd doorashadu hadday ahlu sunna waljamaaca 19 kale ka maqan tahay ma dhacaysaa mise ma dhacayso saasaan u fahmay soo maa doorashadu waa dhacaysaa waxay ku dhacaydaa qaab dastuuriya